wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya xildhibaano iyo wasiiro odayaal dhaqameed koonfur galbeed ayaa ka qayb galay caleemasaarka malaaq Boorow Xasan Gareere oo noqonaya malaaqa cusub ee beesha reer Dumaal. Malaaq Deerow Yacquub oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo ka hadlayay madasha ayaa sheegay in golaha dhaqanka ay gudoomeen beesha reer Dumaal malaaqa ay soo doorteen isla markaana ay ku garab geli doonaan hawsha loo igmaday odayga iyagoona ku biirin doona wixii waaya aragnimada dhanka odayaal dhaqameedka koonfur galbeed Soomaaliya isagoo sidoo kalena Malaaq Deerow waxoogaa ah hoga tusaaleeyay ka soo qaybgalayaashii munaasabadda caleemasaarka malaaqa beesha reer Dumaal muhiimadda ay u leedahay asal ahaan cidda looga dayanayo iyo sida beesha looga rabo in ay ku garab istaagaan malaaqa si uu u wajaho waajibaadka loo duubay. Tirada koonfur galbeed xildhibaanada sharafta leh odayaasha dhaqanka nabadoonada qiimaha badan leh baxda saafada gabroogana qiimaha gaaya mudan ku qaybgalayaasha shirka dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waa maalin qiimo badan leh beenayaas walaagi dadka qaar erajaraan ma yalla erajaray odayaalka dhaqanka koonfur galbeed markii dhammaadaayana may ogaadaw markii la dooradawna ma la ogaadaw tiyahay timay beeniday maanta inay liinweela markhaata oo Soomaaliya afarteeda gees ku fiirsada ay liin suubay taasna may ka amaanadna walaalaha reer Dumaal oo sharaftan badan suubiyaan markan ka horeeyay maysin lana eedeedan ma hasantiin markii higtaana may lahaa sugoone aan kama naqeeyay wasiirkeena qaaliga ah wasiir Maxamed Abuukar oo kumad ee odayaasha dhaqanka dhalinyaranimadiisa fiirideen tiitalo isuhun baarsinya oo walbana malaaqa dhali haddana may barroogay wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu xukumo malaaqyada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfur galbeed marka anbahan naqaana sidoo saniin qiimay odayaashiisa dhaqanka aan dhaaf fadheeday oo uu xilshay oo kuma taaytay in odayaalka la shaqeeyo an kama naqaana wasiir mayba kalena eedan ma hasanta xildhibaanad Fawziyo Cali Xasan oo ka mid ah golaha wakiilada koonfur galbeed Soomaaliya isla markaana isku hib yihiin malaaqa ayaa munaasabada ka sheegtay hadallo ay intooda badan kula dardaarmisay odayga la caleemasaaray iyadoona si gaar ah uga codsatay in marka la caleemasaaray kadib oo odayga cusub u istaago sidii uu isugu soo dumi lahaa beesha reer Dumaal iyo turxaan bixinta wixii madmadow ay ka dhex jira. awlama inta ku salaamay malaaqa meel raayis koonfur galbeed digli mirfla meel raay bay kala inta ku salaamay wasiire xildhibaanada sharafta leh odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed haweenka saxaafadda ciidamada qalabka sida wariyaasha kulli meel raay inta ku salaamay salaan ku dib may baan sheegay meel raay sugeek inii meel raay malaaqi reer Dumaal caleemasaarahay caleemasaarkaasna kulli meel raay dad badan ku qayb galeen ununa ku mid ah xildhibaanadii koonfur galbeed oo ku jeedi beel reer Dumaal markii uu haniin gudbiyeen odayaashii meel raayis dhaqanka ee meel raayis beel reer Dumaal unun kula gadoonay saas dartii ee qoyni bulshadii meel raay koonfur galbeed ku jeediyay odayaasha. wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi oo qaatay gabagabadii xafladda hadal jeedinteeda ayaa si guud iyo si gaar ah u dulmaray golaha dhaqanka kaalintooda iyo mujtamaca hawsha ay u hayaan waxa uuna odayaasha dhaqanka u jeediyay in ay soo dhaweeyaan malaaqa la caleemasaaray isla markaana la shaqeeyaan. namayl raay farxad weyn aniga tageekan ku qayb galna caleemasaarka ugaaskii walaalahan nin shaanan geeka mayl raay iyo ka bandhigan iyo shaanan mayl raay dadkii koonfur galbeed oo aran reerkantii qofkii hasku xuleen qofkii matala la yaran markan weylana mayl raay ugaas hambalyo malaaqida kinka hambalyo kale mar lamaad mar saddex ida kinka hambalayeen saas oo kale beelayeen iidan ka hambalayeen sidoo mayl raay wanaagi sharafta leh sideedka wanaag leh mayl raay xafladon qiimaha qaayaha layoonka mayl raay malaajo onka abaabulin may weelay sharaftiyo on sameeyeen kumid ah tageekan iyo xaflad noocan ay qobadan sharaftiyo malaajon sameeyeen kumid ah in xaflad noocan ay geekan qobadan mayni muujaas meel mayl raay reer Dumaal ku rooga malaajo ani mayl raay antan oo wasiire antan xildhibaane dhammaan mayl raay koonfur galbeed
qayb kasto bulshadu ku mid ah dad metelahay on trooga markan waa inay muujiyaasay taasay intii may leedahay eed beelanka faraxsanta way rajay doonaa insha Allah taala وسونا ساسوك لما يلا راي جيك أنت على مسار ما وانندو أيان أني راي ما يلا راي هلكو علص أو سر لساري لهندور دي إلهي لقادة إلهي مفوضاي إلهي إنكعابينا ملاقبورو حسن قريري أيا لوغا فرديا إن وجهه ولا بلارن أو يقو ريان كشاكينتا من نمضى إيو ودجيركا باشر الدبال إيمان توحلي مسارتي إن ونقضو أضيق قود باشا arrimaheeda oo dhan ee dhinaca dhaqanka iyo nabad ku wada noolaanshaha wadaagteeda uga fadhiyaan beesha kuwa la olagaca taasoo u baahan hadal odayeed iyo garwaayeelo wax ku oola mukhtaar sheekh aadan dalmar telefishinkii raadiyaha dalsan bulshan wiiney baydhabo jinaa